qaar ka mid ah haldoorka dhalinyarada iyo aqoonyahanka Somaliland ayaa dhawaan halkan oo ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ka dhawaaqay barnaamij ay ugu magac dareen baaq shacab kaas oo ay sheegeen inay kaga hadlayaan inay dhaliilsan yihiin Somaliland sida wax loo wado iyo waliba sidoo kale sida xukuumadda Somaliland ee hadda jirta ay wax u wado kobaca horumarka iyo guulaha uu dalgaadho waxa saliya asaas u ah dhalinyarada Somalilandna waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaradu ay ka tahay 75% haddaba haldoor aqoonyahan iyo dhalinyaro qaarkood magac weyn ku leh Somaliland ayaa ku dhawaaqay waxay ugu yeedheen baaq shacab waa guux dhalinyaro oo aan lagu baraarugsanayn waayeel iyo xukuumadba saameyntiisana leh haddii aan loo dhug yeelan inkastoo Somaliland caga adag ku taagan tahay haddana ruxunka ay girgirada hayaan haldoorka dhalinyarada u badani waa mid wiiqi kara rukunada adag ay ku taagan tahay Somaliland dhalinyarada ka soo kala jeeda 6 gobol ee Somaliland waxay sheegeen inay saluug weyn ka qabaan sidii Somaliland wax u socdaan iyo guud ahaan maamulka xukuumadda ma jiro wax war iyo warbixina oo xukuumaddu si guud uga midaysan tahay kana soo saartay arrintan la xidhiidha baaq shacab ee dhalinyarada marka laga yimaado shakhsiyaad ay ka mid yihiin wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo xilalka iyo xukuumadda oo si gooni ugu jawaabay dhalinyarada baaq shacab waxaan bariyahan aragnaa oo inagu batay ayaamahan dambe dhalinyaro meel allaale iyo meel ay ku soo koreen iyo meel ay ku noolaan jireen anigu aan garan waayay oo meel walba la taagan Somaliland maxaa u kordhay 9 sanadood salaxlayo qura maxaa u kordhay Somaliland kale intaan la gaarin qofkii joogay oo in badan oo halka joogtay ka mid tahay 99kii iyo 92kii iyo 93kii iyo 94kii iyo 95kii iyo 96kii dadkii inta joogay way garanayaan waxa kordhay lagama jawaabi karo maayda maxaa kordhay iimaanliyada kordhu ma la oran karayaa de wax kale isaga ala iimaanliyo ku kordhay dadku way garanayaan waxa kordhay Somaliland maxay qabsatay wallahi saan uga naxaynaan ka naxin qofka bini'aadanka hor Somaliland iska day qoyskaagu inta wax ma qabsaday qoyskaagu inta wax ma qabsaday inagoo de ay ummadda Soomaaliyeed ay walaaladeen yihiin haddana kala dalbaynu leeyahay bal Soomaalida aad Somaliland aad ku cabirayso eed leedahay xagee gaadhay halkay joogaan Somaliland u malin maayo shantii Soomaaliyeed inay meel dhaata jirto u malin maayo halkan waxaan rabaa inaan mutaqaana information ka bixiyo ama uga hambaliyo baaq shacab iyagoo soo jeediyay fikrad cusub oo ku cusbeed dhalinyarada Somaliland waayo jiil kastaba inay mutaqaana keenaan wax idea cusub aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa horumarka ay u bilaabeen iyo wadada ay u qaadeen guusha waayo dhalinyaro kastaba waxay leeyihiin dad gobaabiya dad kastaba haddii ay lahayn dad horumar oo lagu daydo waxba ma soconayaan waayo dadalkan Somaliland dad baa naftooda u waayay dad baa mutaqaana muxuu ahaa gobonimo u soo dhaliyay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa mutaqaana gobonimo weeye wax la sugayay waa iftiin ka soo muuqday waaye muxuu ahaa gobolada Muradjeex gaar ahaan magaalada Hargeysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan dhihi lahaa hore u socda oo halkiina ka sii wada dadaalka waayo markaad wada qaadaan wadadaas wax in ka leexiyo waayimeysaan nabada waxaan ka sugaynaa balinta saxay loo qabsoontayna inay sheegaan wixii dhaliilan loo sheegaan iyagoo bilaad ruxaana ay saxsayn ina fikirkooda cabiraan wax saxsayn qof aanu badan ka soo jeedina dhalinyarada baa shacab anaga taageersan hadaan nahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan caasimadda baaq shacab aad baan uga soo jeedaanu waayo wax xaqiiqo ah oo dawladda ku dhaliilan ay leeyihiin waxaasay dawladdu ka leexatay ma jiraan dawladduna iyada mandate u haysata wadanka loo doortay baarlamaan baa jira golo wasiiraa jira golo deegaan oo la soo doortaa jira way qaldan yihiin dawladduna xaq qabataan leenahay hal xidho gabigoodaba xukuumaddan waxaan ugu baaqanaa runtii waxaan aaminsanahay anigu siyaasad ahaan ina xukuumadda dhaliisheedii ay tahay halka maanta baaq shacabka keentay xukuumaddan haatan joogtaana in aad loo dhaliilayo oo taasi ay kaliftayna baaq shacab meesha ay dadkaas ay ku dhawaaqaan ay dhahdaan waxa xusid mudan in dhalinyaradani taageero ka heleen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaridka oo uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isagu qoraal u dhawaan soo saaray ku taageeray dhalinyarada baaq shacab su'aasha isweydiinta le waxay tahay haddii xukuumaddu aanay wax warar ka soo saarin arrinta baaq shacab ee dhalinyaradan sidee ayuu xaalku isku bedeli doonaa Liban Cismaan Ali Telefishinka Ariel Hargeysa